هذا وحكي كجير waa dhili karaa Puntland uu madaxweynaha waa dhili karaa baarlamaankayga waa canaanan karaa deegaankayga waa Puntland weeye waa maay karaa waa dawladdeed laakiin waxa ugu khasaba oo waajiba cashuurtana inaan bixiyo difaaca Puntland aan wax weeye aan cidna ka sugo waa difaacanay markii laga yimaado waa dawladnimada taas markii laga yimaado aan u soo laabto teamkan iyo dadkan haysataan iyo shakhsiyaadkan inaad nasabadana ka saadaan Puntland ka saadaan idinka xaq uma leeyihiin ayaguna inay aragtidooda ay wataan oo ay wax weeye ciday doonaan ku dhaliilaan xornimadooda ku haystaan mobilkooda iyaga iskale cidii marka ayadu garanaysa ama cid iyaga ka soo horjeedo dhahaysa wacyi gelin kala wadnaa war teamkaas wax weeye marxabaamin bay wadaan wax weeye waa la iska hor imaan karaa سياسة قعنت سارة سياسة قعنت سارة ما شاء الله أنا كنت ديدنا هاي يراهدين markaan taa u laabto anigu horti markaan u soo laab shakhsiyadda ida teamkan markii hore dadkan reer Puntland baan wada ahayn dooda Puntland baan difaaci jirnay dooda waa ka qayb gali jirnay xabadda meel fog baan ku ridi jirnay xabadda hoos bay u soo dhacday hartiga dhexdiisa noqotay anigu hoggaanka waa goostay xiriirta gadaal baan hoggaanka goostay taa markii laga yimaado waxa ay muuqatay wixii in la leeyahay SDF waxa Puntland leh Puntland reehbal baale Puntland waxa weeye waxa committee dad leeyahay waxyaalahaas oo dad ka camanaya waa maqlay marka inay waxyaalahaas iyo idin saameyn baa leeyahay shakhsi hadalka iyo idin saameyn reer Puntland baa wadanahay ayada ayna deeqda cashuur bixiyaal baa wadanahay kulligeen waxa weeye maalinba nin baa kursiga ku fadhiya ninka madaxweynaha kursiga ku fadhiya sharciga inuu noo ilaaliyo weeye waa dhaliili karnaa waayahay abti sharci waa in lagu asaaka aan wax rabtaa in anigu labadeena wax isweydiino oo sharciyadii aynu dadka u soo dhignay oo la garab marayo aan cabeeyo baa doonaysaa marka bashka weydiin su'aal baan weydiinay arrinta ka weydiinaya inaad sharci way marka dawladeena waa dhaliili karnaa waa inaynu wax weeye su'aal baan weydiinay intaad ka bixin sawaxa uga baxday inaad dadkan u bayaamiso wadambeynaya bashka hawshaada qabso xabadii hoos u dhacday baad dareentay number 1 xabadda hoos bay wali u socotaa hadda ma garat waliba hoos bay u socotaa Puntland dhexdeeda ayadoo wax weeye la si fiican buu hadlay oo wax weeye la galgalayo qayb dadkii wax weeye laga dhigay dadaan wax weeye Puntland majaroos ahayn Puntland oo la leeyahay team baale koox baale dad baa u soo halgamay dadkaas wax laga weydiinaya dadka inta kale waxa ma aha adigu cashuur bixiyaa tahay khayraad baa tahay dhibaatooyinka noocaas baa u socoto waa dad xaruunsan waa arka waa runtii wiilka runtu labaad anaga harti baan la dhahaa dhulbaanta waxbuu nala dhistay waxbuu nala leeyahay dhulbaanta la maagay halkaan lagu dhagan yahay Puntland dhulbaanta iyaga ama ka kaftamin daarado dhan durbaa meesha ka muuqdo marka waxyaalo badan baan ugu xiriirta uga goostay gabdho walaalahay weeye anigu inaan ka daba qaato ma rabo inaan waxa weeye aan falanqeeyo ayaga ma laakiin hogaamiye baa kula jooga maanta adigu maxaa hogaamiye ku biirinaysa u sheegaysa hogaamiye waa hal su'aal wiilkaan in laga saaro weyn adeerkeena wiilkaan adeerkeena marka uu Axmed wax u sheega marka hogaamiyihiisa Axmed aniga isku mid baan isku meel baan laga saaro weyn adeerow waxaana waxa wiilka ku sheega weyn aniga Axmed fakar baan ku darsan jirnay Axmed meesha haduu joogana waa caadi fakar baan ku darsan jirnay annaga ma ahayn inaanu Axmed F-na ma wato teamkana waxa weeye inuu kamid yahay Axmed uu F wada masigo Axmed uu F wadane dhaagahaas waxay ku hadlayaan waa u dhageystay baabuurtiisa waxay taagan tahay kontaroolka laascaanood garow laga leexdo laascaanood looga leexday baabuurtiisa taagan tahay raashin bay sidaa waa shiraacan tahay ganacsi buu rabaa inuu Somaliland la yeesho haye Somaliland inuu ganacsi la sameeyo rabaa halkaas taagan yahay Somaliland naga galay Axmed oo Somaliland dhiijinay garow iyo cada garow waan tagaynaa damiir Axmed oo yeeltidin ade iyo cada garow waan tagaynaa nimankii dhahaya seebaan ula hadli karaa seebaan nimankii ilmaadeertay la dirirayo familka iyo daarood kala aqoon kan daaroodka gujirka ma kala yaqaanin seebaan ula hadli karaa niman isaga meesha ku jiray hadaan mashruuc wata ka waran dhaqaale rabo ayda ka mashruuc wuxuu hadaa la yiraahdo waxa lagu siinayaa boosaaso iyo Puntland dhan baa lagu siinayaa kama yeeleen cidna kama yeeleen dadka mashaariic bay wataan dhaqaale rabaa inay sameeyaan horta aad iyo aad wax yari kaadiya marka
arrinta federaalka iyo inaynu maxaan ku dhahaa baalkii Puntland xuquuqdeeda raadino dhamaanteen horta waa u midaysanahay buntland ayadaa muqdisho dhista iyadaa madax banaa xaquuq ka maqan ma jidho xaquuqna ma raadisaan dadka halkaa ka qayliyo tiktok ka qayliyo xaquuq ma raadiyaan tiktok ma xaquuq raadiya أحمد وفدرال أنت هذا أقول أنت كلا كهذا ninka alla hadal dadka waa xarfu waa haya waa u dhageysta wala xalu ka hadal dadka dad waala فدرال أنت هذا أقول كليه واحد المدرسة إذا كنا على يمد كلا دوايا واحد فلان أما كهذا شا نظام كأه ماشي وانا نرس عنا لكن كليه واحد كهذا الشعب رأي أراه هذا واحد كل ديوان كذا كليه إن بطل حبضي هوس لو دغاي احمد حبضي هوس لو دغاي بالكتيبا حبضي كربي ودعaysa markii hoos baa la isugu dhigay wala arinta ka hadal niyo arrimahaas xalay bay dhaceen baa la dhahayo hadda waraan ما دحين مدة بس سعت لما بيد وسعت بس كبرنا